السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada dhammaantiin kuna soo dhawaada fiidiyowgayga labaad aan ugu talagalay bahda YouTube-ka maanta waxaan samayn doonaa sida fiidiyowgii horeba uga barateen maxay tahay live trading insha Allah sababta aan trade-kan u galay iyo waxaan u galay insha Allah ma sheegi doono laakiin maxay tahay waxaan ku sharxi doonaa waxa aan rabo inaan sameeyo maxay tahay haddaadan YouTube-kii hore fiidiyowgii hore aan soo daawan oo live-ka ahaa wax ka codsanaya inaa kaas daawatid because kan fahankiisa runtii aad buu kugu fududaanayaa maxay tahay aan guda galno trade-keena ani waxaan trade gareeyaa 15 ama 8 subaxnimo markay Mareykanka u tahay adu 15 ilaa 18 saddex saacadood baan trade gareeyaa saddexdaas saacadood oo waqtigaan ugu talagalay trading-ka laakiin waxaan ka trade gareeyaa hadda ugu badan tahay 45 daqiiqo ama 30 daqiiqo saas darteed maanta waxaan rabaa inay raacdid trading-kayga bilowgiisa ama maalinteeda bilowgeeda insha Allah maxay tahay asbuuciina hal mar baan waxaan kusoo gelin doonaa insha Allah live trading YouTube-ka maxay tahay anu suuqa meeshaan imaaday analysis-hayga waa soo sameeyay waa soo diyaariyay diyaar baan ahay maxay tahay suuqa diyaar baa u ahay maanta saas darteed xaggaan ba insha Allah waqtigayga trading-ka iga bilaabanaya so hadda hadduu sad ab yimaado insha Allah waa geli doonaa maxay tahay xogaa yar aan ku sharaxo maxay tahay kan waa oro window-gii wey waa meeshaan trade-ka ka gelaya waa ujeedaa meeshaan buy limit sell market sell buy sell market waxaas oo dhan baa ujeedaa meeshaan waxaa kaloo uga jeedaa iyadana isha footprint chart wax la dhaho amase box chart meeshaan runtii waa meeshaan go-aankayga saxda ah amase go-aankayga ugu dambeeyo aan ka gaaro maxay tahay hadda 10 daqiiqo labaad baa bilaaban doona halkii box waa 10 daqiiqo 10 daqiiqo boxna waxa ku jira 1 daqiiqo saas darteed meeshaan waxa kaloo yaal iyadana charts kala yaal meeshaan waxa yaal iyadana charts kale oo 30 daqiiqo iyo 15 daqiiqo meeshaan waxa yaal iyadana mid kale saas darteed ima wada qaado shaashada amse dhaladan 6 chart ma wada qaado saas darteed intii ugu muhiimsaneed waxaan iskugu keenay aan isheeg maxay tahay hal dhalan iskugu keenay maxay tahay insha Allah live trading kana insha Allah wax badan waa ka fahmi doontaa maxay tahay waan hubaa suuqu wuxuu sameynaya fiirinaya muxuu soo sameeyay labadii saac u dambeeyay suuqu long buu ahaa so isheena waxay ku dhacaysaa inaan rabno inaan maanta long raadino long wax ka wada buy suuqu xaggaanu ka furmay meeshaanu ka furmay saacaddu markay ahayd xalay 12kii habeenimo markay Yurubta u ahayd meeshaanu ka furay suuqu muxuu sameeyay kor buu aaday subaxnimadii saaka EU session-kii amase Europa session-kiina maxay tahay long buu ahaa so goortay ahayd meelahaas adigu 11kii duhurnimo uu soo dhacay suuqu wuxuu yimaaday liiniyahan buu yimaaday ujeedaa ku celceliyay ma uusan xoogii ma uusan lahayn inuu ku jabiyo saas darteed wuxuu sii watay longigiisu wuu sii watay maxay tahay hop session-keena insha Allah waa meeshaan waxa ujeedaa chartska saan iyo meeshaan inuu kan runtii volatile yahay maadaama ay maxay tahay amiska suuqa xilligan soo galaan amase uulka suuqa waa uul maxay tahay amase waxa weeye saliidda amase olyada maxay tahay anu isheedu waxay ku haysaa long laakiin suuqu wuxuu samayn karo lama garan karo saas darteed wuxuu uu suuqu sameeyo baan insha Allah fiirin doonaa so midda kale maanta waa Mareykanka waxay u tahay fasax bay u tahay saas darteed kama rajaynayna maanta move badan inuu sameeyo laakiin move-keena ugu macquulsan insha Allah waa ka qaadan doonaa insha Allah volume-ka suuqana runtii aad buu u yar yahay ilaa maanta volume badan suuqa ma jiro maadaama ay amiskii amase Mareykanka dadkii yani
big playerskii ay maanta kulligood fasax yihiin maxaan u targareynaa haddii ay amiski amise big playerskii ay maanta kulligood fasax ku jiraan sababtoo ah saliidda adduunka oo dhan baa laga targareeyaa meel kasta yacni xilliga aad soo geshidba saliidda waa targareyn kartaa stock exchange kastaba waa laga targareeyaa maxay tahay ya xoogaa daaqadan iska xiraya isuga maadaama xoogaa meeshaas wax kasoo gelgelayaan waa soo laabtay inay maqashaan baan u maleeyaa daaqadan iska xiray maadaama uu dhawaaq uu bannaan ka soo gelayay maanta waxaa ujeedaa runtii suuqu inuu tartiib u soconayo runtiina maxay tahay uusan meeshaan markaa fiirino hadda in uu maxay tahay ya buyers badan iyo sellers badan inay suuqa aysan ku jirin saasoo tahayna micnama sameynayso insha allah setupskeen hadduu yimaado isheeg maxay tahay tradekan waa gelaynaa midda kale waxaan sameynayaa limitka volumen limitka insha allah waa soo yareynaya waxaan ka dhigayaa insha allah 300 maadaama uu suuqu maanta volumen badan lahayn ya midda kale order flowgu wuxuu ku fiican yahay yacni wax nafsadaada kasoo horjeeda ma sameynaysid yacni markasta waxa kugu habboon amase trading styleka kugu habboon baad sameynaysaa laakiin istaraatiijiyadda iyo waxaas oo dhan waa hal mid laakiin qofba istaraatiijiyad baa ku habboon ma garanaysaa waxa laga yaabaa inaa break out trade inaad ahayn inaa waxa tahay correctua amase consolidationka dadka trade gareeya inaad tahay runtii laakiin inaa heshidna trading stylekaaga xoogaa waqti bay kugu qaadanaysaa laakiin haddii aad mentor haysatid kutusa waxa ma garanaysaa aad rabtid inaa markaa rabo inaad sameeyo kabacdina tradingkaaga fiiriyo maxay tahay muddo kula socda tradekaaga maxay tahay asbuuc kasta aad samaysid amase maalin kasta aad samaysid amase 4 asbuucba aad samaysid mentorkaaga amase coachkaaga u dirtid uu ku dhaho okay meesha ay meeshaas wax ka khaldan meesha ay meesha wax ka samee meesha ay meesha wax ka sax runtiina businesskan mentor la'aan amase coach la'aan ma shaqeynayo waa inaad kasoo baratid dadka ugu wanaagsan meeshan haddaa rabtid inaad yani businesskan noqotid dadka ugu fiican ya xilligan oo kale runtii meeshan suuqan aad buu u dhaqdhaqaaqi jiray laakiin maanta waxaa ujeednaa inuu uusan saa u dhaqdhaqaaqayn micno ma sameynayso laakiin insha allah waa sugaynaa hadday u badato tradekan amase 60 daqiiqo ka badan ma sameyn doono insha allah waxa laga yaabaa inuu adiga kugu dheeraado maxay tahay saas darteed hadduu sad upskeenu yimaado maxay tahay waa gelaynaa haddii kalena isha maxay tahay ya ma gelayno tradingka midda kale tradingku waa inaa maaha inaa wax badan samaysid maadaama uu qofku aan dhahno maadaama uu qof 9 to 5 job uu ku jiro uu yani lacagta lagu siiyo xil inta badan uu shaqeeyo yani markaa shaqaale caadiga markaa tahay markii aad wax badan samaysid amase shaqo badan samaysid markaasaa lacag badan lagu siinaya laakiin tradingku saa maaha tradingka wuxuu lacag kugu siinayaa go'aanadaada sugitaankaaga disciplinekaaga iyo aqoontaada ya intaasuu lacag kugu siinaya intaasuu hadda laga yaabo hadduu 1 daqiiqo inagoo suuqa ku jirna hadduu meeshan setupskaygu imaan lahaa dag waa geli lahaa ma garanaysaa waa ka qaadan lahaa profitkayga kabacdina way dhamaato 5 daqiiqo muxuu igu siiyey markaa lacagta tradingku wuxuu igu siiyey go-aankaygii dhaqsaha badnaa iyo isha maxay tahay iyo aqoontayda iyo xirfadayda ma garanaysaa marka saas darteed tradingka markasta wax badan ha sameynin wax yar samee badana u fiirso sug chanceska ugu fiican gal maadaama ugaarsado tahay waa haddii aa ugaarsado tahay waa inaa maxay tahay meesha ugu fiicana suuqa ka geshid meesha ugu fiicanna aa ka baxid laakiin haddaa overnight trade samaysid oo maanta o dhan xagan ku dhufo maxay tahay yani psychishkaaga mise madaxaaga uma fiicna
maxay tahay waqti badanna yani ma sii wadi kartid mise maalin kasta inaa magaranaysaa emotion tahay oo waxaas oo dhan maxay tahay iyadana laakiin waa process wax yani maxay tahay xalay mise maanta lagu samayn karo ma jirto maalin kasta waa process maalin kasta inaa hal maxay tahay percent inaa fiicnaatid baa la rabaa sidaa ii sheeg maxay tahay goolkaaga u gaartid trainingkaygu saas uu egyahay saasaa u train gareeyaa maxay tahay insha allahna meeshan waa ka barano so meeshan waxaa soo galay waa ujeedaa pricekan halkan pricekan waxaa soo galay waxa yaal sell limit baa yaal oo ah 185 lot baa yaal yani marka suuqa xaggan yimaado 186 lot suuqay ku jiraan overflowguna wuxuu ku fiican yahay amise fluent tradingkuna wuxuu ku fiican yahay amise overflow fluent trading wuxuu ku fiican yahay waxaa arki kartaa waxa suuqa hadda ka socda hadda intaan yarta keersahan amise kanalkan sababtu hoosta u aaday waxa weeye 39 lot baa soo galay saas darteed buu hoos u aaday xaggaana waxaa sugaysa 48 lot 48 lot xaggan way taallay ka baxday soo ma jeed meeshan bay soo galeen pricekan 91 hadda 94 toban kala sugay tobankan waxay rabaan hadda inay meeshan soo galaan soo ma jeed way ka baxday 97 bay noqotay hal baa ku jira meeshan halkan hadduu ka baxo soo ma jeed 100 bay noqotay so overflow saas u shaqeeyaa maxay tahay iska sugaynaa sugitaanku amise sabirku waa waxa ugu muhiimsan ee tradingku haddaan hadda meeshan ka bilaabo aan dhaho okay suuqa halkaan mise okay long buu aadaya meeshan ka galo maxay tahay kow ima siinayso marka hore chance amise aaminaad inaa anigu is aamina ima siinayso systemkayga maxay tahay yani opportunity-gii amise chancekii saxda ahaa markuu yimaadana yani ma garan kartid sababtoo ah trade khaldan baa marka hore soo samaysay go-aankii saxda ma aadan soo gaarin laakiin haddaa maalin kasta timaadid go-aanka saxda isku day inaad gaartid maxay tahay khasaaraha waa yani the part of the game ma garanaysaa yani waa wax ka mid ah cayaarta ma garanaysaa midda kale khasaaruhu aad buu isaguna u muhiimsan yahay sababtoo haddaadan khasaarin yani ma ogaan kartid waxa aad rabtid inaad saxdid ma garanaysaa saas darteed haddii aad khasaartid ha isdhihin waa xun tahay amise maxay tahay isweydii keliya waxaad tirahdaa okay sababta aan khasaarahan u sameeyay waa maxay maxaa hadda rabaa waqtigan la joogo muxuu suuqa i barayaa because macalinka ugu weyn waa suuqa magaranaysaa macalinka ugu weyn waa stock exchange-ga macalinka ugu weyn waa marketka macalinka ugu weyn waa suuqa aan markaa tiragereynaysa mentorku wuxuu ku siinayaa istaraatiijiyadii wuxuu ku siinayaa wadadii buu ku tusayaa laakiin wadada qofka qaadaya waa adiga wadada qofka raba inuu qaado tooshkiisa ifsado hadba 20 mitir socdo baabuurka waa aragtay baabuurka markuu socdo baabuur hadda maxay tahay andhaho muqdisho kasoo dhaqaaqaya oo hargeysa u socda yani wadada dhan ma wada arki karo wuxuu arki karaa ilaa dhowr mitir buu arki karaa oo waxaana u ifinaya waa indhihiisa yararka oo ku xiran dhowrkaas buu hadba ku soconayaa oo wuxuu ku tegayaa intaasoo mitir oo intaasoo kilomitir buu ku jarayaa garanaysaa baabuurka muqdisho kasoo dhaqaaqa hargeysa u socda maxay tahay wadada waxa ku sugaya ma oga laakiin haddii wadadii la rabay inuu hadduu qaado wadadii saxda ahayd oo hargeysa lagu tegay hadduu rabo inuu hadduu qaado hargeysa wuu imaanaya wuxuuna ku imaanayaa labadii indhood oo yararka ahaa uu hadba 10 mitir u ifinayay saas darteed khaladkuna haddii aad khalad gashid waa dhowrka mitir oo wadada kusii ifin lahaa ma garanaysaa mideeda kale haddii aad trader tahay traderada dhan wada isku wada midaa la maraa ma garanaysaa keliya waa la kala horeeyaa maxay tahay wadadaasna waa sugitaan waa discipline waa trading waa samee ku celceli maxay tahay maalinta marka ugu dambaysan insha allah waa la keeni doontaa marka saas darteed waan sugaynaa
xogaa flumenkayga inaan yareeyo weeye sababtoo ah maadaama uu suuqu flumen badan uusan lahayn meeshaan 2 boqol ka dhigo suuqu soo u furay xataa wax flumen u daadiyey ma lahan يعني big players weyn kuma jiro suuqan hadda maanta waxa ku jira waa Europa session way yani dadkii Ingiriiska joogay Mareykanka iyo meelaha ano Europe tan iyo magaranaysa Aasiya iyo meelahaas dadkii joogay baa hadda trade gareynaya Mareykanku waa maanta waa xiran yahay albaabadaas kugu laaban ya safe chartkayga muxuu tusiyay ya markaan fiirino suuqu maanta wuxuu u badan yahay long saasoo tahayna ya waan fiirinaynaa waxaan u samayn doonaa insha allah ya laakiin khasab iguma aha in aniga trading sameeyo ama si aan trade galo ya wax khasaba meesha ma jiraan haddii aan arki waayo systemkaygu uu maanta imaan waayo ya waa faarun cusub amise xirfad cusub baan bartay oo suuqa weji kale ila maalin kasta weji buu leeyahay wejigii uu maanta la yimaaday waan arkay maxay tahay waan u mahad celinayaa waqtigii uu siiyey magaranaysaa kabacdina waa iska soo dhammaynayaa ya banaankaas kaga baxayaa beriba waa maalin cusub ya suuqu ma cararayo maalin kasta wuu joogaa ya so meeshaan waxaa uga jeedaa 15 daqiiqo cusub baa hadda bilaabanaya 6 daqiiqa kale ma 15 daqiiqo cusbaa saacadan waxaa uga jeedaa iyadana waxaa uga jeedaa 30 daqiiqo intii flumig aad buu u yaryahay maanta ya runtii youtube-kan waa kuu bilaan gareeyay oo ku talagal baa ugu duubay waa ogaa inay maanta ay ahayd fasax laakiin inay la joogtid suuqu maalinta fasaxa suu dhaqdhaqaaqo qaabkiisa because maalin waxaa imaan doontaa mise maalmo waxaa imaan doonta uu suuqu runtii volatiil aad u yahay uu xoog u dhaqdhaqaaqayo waxay tahay ya ya runtii waa ujeeda suuqu wax ka socda ma lahan 10 daqiiqo xataa hadda bilaabmaday wuxuu sameeyey fiiri 10 daqiiqo hadda bilaabmaday oo hadda 6 daqiiqo maraya mise 5 daqiiqo runtii suu socda waa ujeedaa marka general amse general waxaan kugula talin lahaa maalmaha uu suuqu uu yahay isheeg waxay tahay fasax lagu jiro amse holiday hadba suuqa hadba sessionka aad trade garaynaysid maxay tahay haddii fasax uu yahay amse holiday uu ku jiro maalintaas fasax iska qaado maalinta khasab kugumaha inaad trade garaysid laakiin I hope ereyadii aan meeshan kusoo iraahday amse aan hadda soo iraahday inaad ka fahantay runtii 10 daqiiqo hadda socda 3 daqiiqo aan haray insha Allah dhowr daqiiqo bacda waa iska soo gabagabayn doonaa I hope inaad wax ka fahantay maxay tahay ya discipline-ku wuxuu yahay aniguna hadda waa iska soo xirayaa insha maxay tahay trade-kan ya bal suuqaqa kalena aan fiirino wax ka socda amse dhowr daqiiqo iska sugaynaa hadda goldiga muxuu sameeyey maanta goldiga laftirkiisa ujeedaa wax ka socda ma lahan waxaan fiirinaynaa euro USD
always waa hal daqiiqo yaa always lafkiisu dhaqdhaqaaq weyn ma lahan bal waa arkaynaa 3 daqiiqo ka bacdi wixii dhaca yaa maxaa kaloo jira suuqa Nasdaq wuxuu uu sameeyaa waa arkaynaa iyaga dhan waa maanta waa died way so tot way dhan ma jiro yaa suuqan maanta wuxuu ahaa bond future wuxuu ahaa maanta waa suuqa Yurub laga talagalay gelinkii hore xaggan u ahaa markaan soo dhaweyno hadda gelinkii hore gelinkii hore move waa sameeyay waliba dhaqaaqa weyn fulin badan baa ku jiray si halkan dib ugu laabanaa fluminka runtii waa aniga hoos soo dhigay xarfaankii hadaya aan xariijin gareeyay oo ahaa 186 lot meeshan taalay uu soo galay 170 iyagana safkii kusoo jiraan oo inay suuqa soo galaan bay rajeynayaan bal waa arkaynaa inuu xaggan tago suuqa uu yimaado oo wuxuu sameeyaa arkaynaa hal daqiiqay bar baa noo haray arkaynaa inuu xagga ku yimaado هذا واحد wuxuu u sameeyaan arkaynaa maxay tahay 8 bar markay tahay ama 3 bar ama Soomaali markuu tahay 4 bar hadda wuxuu sameeyaan arkaynaa سكن 6 سكن بعدين 5 سكن 3 سكن قبل هذا وحسمي عربي صح يا يعني هذه ما ترى من اللون قلو آقام باللون كجل لها يا لكن هذا صد أب كي ماذا محيطي هذيك اللي راح نقول ساينان هذا ماشي أو صد أب كي ويتسوقه ممكن ماشي سودية يعني اللون كجلو هذيك اللي راح نقول ساينان اسكسو كبير طبعا كده غب لا ماذا سوقنا طبعا كده غوت وسميه وأركنا سوقه محيطي يا هذيك اللي اسكسو لما يننا يا حرفيا هذا ماشي soo galay oo rabay inuu 86 soo galo 3 lot baa hadna dhowr qof soo galay runtii price kan dadka dhan baa arkaya xagaan bay rabaan in short ka wada galaan iyaga dhan
laakiin waa arkaynaa bal inuu suuqa xaggaa tago wuxuu uu sameeyo meeshaas. kaasi waa tradingka saas way tradingku haddaysan maalintaysan waxba jirin khasab maaha inaad tiragelisid taas micnaheedu maaha haddii aad kursiga soo fariisatid inaa mouska inaa tataabatid amase maalin waxaa jirta saan oo kale uu tradingku saan oo kale ku jirta suuqu usan waxba ahayn saas darteed insha allah tradingkeena waa iska soo gabagabeyn doonaa maanta insha allah intaas nagu egtay I hope inaa wax ka fahantay waxaan kuu rajeynayaa maalin wanaagsan khayr baan kuu rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu